جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. iyadoo aynu ognahay in quraanka kariimka iyo xadiiska rasuulka عليه الصلاة والسلام lagu sheegay in malabku uu yahay dawo isla markaana aynaan tiro ku soo koobi karin caafimaadka laga helo malabka haddana waxaynu soo qaadan doonaa 8 arrimood oo kamid ah caafimaadka laga helo malabka. waxaanay kala yihiin kow tamarta ama awoodda jirka oo uu kordhiyo laba cuncunka ku dhaca dhuunta ama xabeebta qofka kaga dhacda dhuunta haddii aad xabeeb ku leedahay cunaha ama cuncun ama xanuun cunaha aad ka cabanayso laba malqaacadood oo malab saafi ah subaxdii markaad hurdada ka kacdo inta aanad cunto kala cunin cun. saddex wuxuu dhisaa habka difaaca ee jirka. afar miisaanka saayidka ah ee qofka ku jira wuu ka saaraa. shan hurdada qofka hurda yaraanta ka cabanaya isagana waxaa lagula taliyaa inuu malab saafi ah cuno subaxdii marka uu hurdada ka kaco laba malqaacadood. lix dhaawaca ama nabarrada jirka ku yaalana wuu daweeyaa. toddoba afka urta ka soo baxda afka ay aan wanaagsanayn isagana waa lagu daweeyaa. sideed hargabka ama duriga iyo qabowga jidhka gala isagana waa lagu daweeyaa.